السلام عليكم وأنا ولالكن عبد المجيد أبي وناسنا من مالي وناسين كيدين تهيبة مقال كنا المانتو حين كغاه اللي دونا هيان كاين ugu jirno hibir raadinta maba sida aynu ku ogaan lahayn hibada aynu leenahay aynu kaga duwanahay dadka waxay tahay ku soo dhawow inta aynaan mawduuca guda gelin waxaanu ka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe ta saarto si ay nagu noqoto dhiirigelin ugu horeyntii aan yara faahfaahino waa maxay hibadu waa awood cajiib ah oo Alle qofka ku manaysto in uu ogaado qofka hibadiisa waa mid ka mid ah talaabooyinka ugu horeeya ee uu ku gaarayo wadooyinka guusha iyo horumarka haddaba dadka qaar waxa uu suurta gashay inay hibada Rabbi ku manaysta ay daahfaydaan oo ay helaan xilli horeba halka ay badanaa dadka intooda kalena ay yihiin kuwa baadi goob ugu jira sida ay u heli lahaayeen hibadaas ay kaga duwan yihiin dadka intaa kadib waxaa jirta talaabooyin badan oo aad ku daahfaydi karto hibadaada waxaan kula wadaagi doonaa talaabooyinkaas qayb ka mid ah balse daawade inaad hesho hibadaada waxa ka soo horeeya wada uu magaceedu yahay dulqaad talaabada koobaad wax akhris badan oo loo meel dayo markasta oo aad wax akhrinayso waxaad la mid tahay amaba aad tahay mid rogrog iyo cuqul iyo dhaqanno ay lahaayeen muddo tagay taas oo sabab noqon karta inaad daha ka qaado hibadaas aad kaga duwan tahay dadka intooda kale waxaad akhrinaysaa oo inuu lahaado nidaam iyo qorshe si aanad uga niyad jabin marka aad wado dhowr maalmood marka aad tahay mid caado ka dhigtay wax akhriska nidaamsan waxa uu noqonayaa wax akhrisku meesha ugu fudud ee aad ka dhaxeli karto kana dhaxeli karto hibada Rabbi kugu manaystay talaabada labaad ha sugin hibadaada in ay ku timaado dhaqaaqida iyo raadinta hibooyinkaagu waa talaabooyinka ugu horeeya ee kugu hogaamin kara helidda hibadaas markasta oo aad tijaabiso shay cusub waxaad ogaan doontaa awoodda aad u leedahay shaygaas in aad qabato toddobaad kasta ama maalin kasta wax ka duwan toddobaadkii hore oo markasta oo aad garowsanayso wuxuu Alle hibada kuu siiyey waayo ma ogaan kartid shay kasta oo hibo uu Rabbi kuu siiyey in aad si wacan u garanaysid ilaa aad tijaabisay mooye shayga saddexaad ee aad ku heli karto hibadaada la rafiiqida asxaab wanaagsan samaysashada asxaab wanaagsan ama dad nolosha tusaale kuugu noqda waxa ay saameyn ku yeelanaysaa hirgelinta iyo hanashada hibooyinkaaga midna ogsoonow hal qof ha u daba fadhiisan noloshan idil ahaanteedba ilaa rasuulkeena Maxamed ee suubanaa ee Rabbi raacidiisa ina faray mooyaane qodobka afraad ee ugu dambeeya inaad lahaato samir iyo dulqaad lahaanshaha dulqaad waa arrin looga baahan yahay ruux kasta oo ku dadaalaya baadigoobka hibada marka dulqaad lahaw si ay kugu sahlanaadaan wadooyinka aad ugu jirto hayaanka hibir raadinta ugu dambeyntii waxaan ku rajaynayaa daawade inaad ahaato mid baadidoon ugu jira hibadaas oo Rabbi kugu manaystay kaagana duway dadka muuqaalkan maanta intaas inuu eegyahay intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaad ku dhaafeynaa sidaas salaam